بسم الله الحمد لله رب العالمين waxaan rabaa inaan mar labaad aan ka hadlo go'aankii Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga hadlay masiirka ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya waxay ku maamaadaa ilmo hadii ay ka weynadaan ama ka hadal bataan waalidkii dhalay waxa lagu tuhumaa waalidnimo ana ilmahaas iyaga waalid tuhma beelaha Soomaaliyeed uu ku abtirsado Xasan Sheekh Maxamuud waxaan rabaa inaan u sheego hadii muxuu ahaa go'aamadiini iyo wixii idinka isku raacdeen uu garab maray Xasan Sheekh Maxamuud oo in badan oo kamid ah maantayto ummad kaamil ah aad wakiil idinka dhigatay shacab Soomaaliyeed oo meel walba joogidin aaminay hadii maanta Xasan sidaan u dhaqmay ruuxa kale hadda kadib aad keeni doontaan qaab keebaan ku aaminayna hadii alla qadaro mar labaad inaad ruux keentaan oo dalkan hoggaankiisa uu qabto sideen ku aaminayna Xasan meeshuna dhigood u jeedaan ilaa hadeertan wax apologize ama hadal ah odayaasha beelaha uu Xasan ku abtirsado nama soo gaarin waxaan rabaa inaan ku baaqo Soomaaliya oo u sheego oo la xisaabtamo Xasan Sheekh Maxamuud hadii uu sharci asaga qabanin laakiin beelihii asaga ka dhashay wax garadka muxuu culamaa diinka dadka dheer garadka aqoon yahanada bulshada rayidka oo ku abtirsado Xasan Sheekh Maxamuud ummadan Soomaaliyeed godkan uu geliyay ama rabitaanka Itoobiya iyo maamulo dan gaar ahaaneed leh rabitaankooda inuu fuliyo masiir ummadeed u horseedo arintaas ayada arin Soomaaliya u cuntunta ma aha waa fahamteen Soomaaliya uma cuntunta khaasatan waxaan ambaareynayna oo muxuu ahaa si odeer ah oo gabasho aan lahayn u ambaareynayna go'aanka mugdiga ah ee qolku isaga soo xiray Xasan Sheekh Maxamuud oo kadib markii dawladaha dariska ay muxuu ku cadaadiyeen inuu muxuu ahaa saxiixo sida ayaga rabitaankoodii iyo maamulada daba dhilafyada ah oo muxuu ahaa dawladaha dariska ah la shaqeysto dan Soomaaliyeed aanan fiirinayn inuu fuliyo arintaas xisbiga dan guud daryeel shacab mar walba uu ambaareynaya mana dul qaadan doono wax nagu socon doonana ma ahan waxaanu sheegayaa bulshada Soomaaliyeed arintan Xasan Sheekh Maxamuud waa in laga gadoodaa baarlamaanka oo hadeertan magacyadeeni wato jooga xamar waxaan farayaa ama ku wargelinayaa oo loo sheegayaa si muxuu ahaa gabasho aan lahayn ugu digayna ama u sheegayna hadii aysan arintan ka soo jawaabi karin annaka muxuu ahaa yuusan lugoynina kuraasta habaneeyo wax naga quseeyo United Nation hab yaraatay malan annaka masiirka Soomaaliya baa leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.